agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa bilaabay baaris lagu sameynayo maqnaashaha Ikraan Tahliil Faarax oo la waayay sanad ka hor 26 bishii Juun ee sanadkii hore ayaa la waayay Ikraan Tahliil Faarax markii gaari looga soo qaaday aagga aadka loo ilaaliyo ee taliska nabad sugidda Soomaaliya. maqnaashaha Ikraan Tahliil oo ay sanad ka soo wareegatay ayaa lagu eedeeyay madaxdii hore ee hay'adda NISA, inkastoo warar iskhilaafsan ay sheegeen Yaasiin Fari iyo Fahad Yaasiin oo ka mid ah dadka kiiskan lagu eedeeyay kana tirsanaa madaxdii ugu sarreysay ee nabad sugidda Soomaaliya. Ilawareedyo amni oo aad ugu dhow taliska NISA ayaa ii sheegay in Mahad Salaad uu yeeray saraakiil ka tirsan hay'adda oo lagu tuhmayay in kiiskan ay xog badan ka hayaan, isagoo weydiiyay su'aalo ku qotoma xogta ay hayaan ee la xiriirta kiiska gabadhan oo ka mid ah saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya. baarista kiiskan oo bilaabatay maalmo kadib markii Mahad Salaad xilka la wareegay ayaa la rumaysan yahay inay sabab u ahayd waraysi uu dhawaan bixiyay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasoo kiiska Ikraan Tahliil dusha ka saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wasiir ku-xigeenkiisa wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaale iyo agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad. saraakiisha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee warbixinta nala wadaagay ayaa sheegay inaysan haynin xog hordhac ah oo baarista laga helay, balse Mahad Salaad oo kaashanaya saraakiil kale uu arrintan bilaabay, iyadoo si weyn looga dareemay gudaha hay'adda dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax. maqnaashaha sarkaal Ikraan Tahliil Faarax ayaa dalka gelisay xaalad adag muddo sanad ah, waxa uuna kiiskan ku jiraa ciwaanada ugu horreeya ee wararka Soomaalida, taasoo sababtay inuusan kiiskan damin dawladdana uu ku noqdo qodob ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hor yaalla. kooxda nabad iyo nolol ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku dayaya in kiiskan ay u wareejiyaan siyaasiyiintii mucaaradka ku ahaa muddadii iyo xafiiska joogeen, kuwaasoo hadda la wareegay talada dalka. dhinaca kale, agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa dib u soo celiyay dhammaan ciidankii hay'adda ee ku jiray shaqooyinka kale islamarkaana ku sugnaa gudaha Muqdisho, iyadoo sidoo kale taliskooda lagu soo celiyey gaadiidka hay'adda oo siyaabo kala duwan loo isticmaalayay. saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya ayaa ii sheegay in agaasimaha cusub uu maanta feeliyey ciidamadii duufaan ee ahaa kuwii ugu badnaa ee ka maqan taliska hay'adda. sidoo kale ciidankan ayaa qayb ka ahaa kuwa sannadihii la soo dhaafay loo adeegsaday faragelinta siyaasadda Soomaaliya iyo weeraro loo geystay dad siyaasiyiin ah. Mahad Salaad ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo uu isbeddel ku sameeyo talisyada hay'adda oo maalmihii la soo dhaafay u waday oo kuurgelidooda, inkastoo weli ay hor yaallaan caqabado xoog leh oo gudaha hay'adda NISA ka jira. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha NISA ayaa la dhowrayaa sidii u maareyn doonaan kiiskan oo ah waxa ugu weyn ee hor yaalla nabad sugidda Soomaaliya, waana qodob xasaasi ah oo ay dhowrayaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in loo baaro si cadaalad ah oo ka fog aargudasho iyo weeraro siyaasadeed oo ka dhana siyaasiyiintii iyo saraakiishii ku lug lahaa xukunkii hore ee madaxweyne Farmaajo.